السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الهانتي من ملك صدق داوانسان halkani waa hamidowda aniguna waxaan Cabdiraxmaan waxaan ku rajeynayaa meel kasta sodga daawanaysan caafimaad qabto insha Allah taala hadii aad nala joogtay waad mahadsan tahay hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo channelka subscribe noo saar wadada boqolka kun baanu saaranahay hadda barta Facebook nagala socotana follow na soo dheh Ramadan Kareem waa maalintii 16aad ayaynu soo soonnay insha Allah taala ma sha Allah already Ramadan ka dhinacayo وبطي maalmo yar oo kooban oo la tiriyay way Ilaahay anaga aqbalin damban Allah ina waafajiyo rab kuwa kalena badqabi caafimaad Allah ina u gaarsiiyo waa casharadeen imtixaanaha ay ku saabsanaa xeerka sooyaalka ee dhaqanka ee xeer Ciise waxay inoo joogtay qaybtan waa qaybtii 32 waxay inoo joogtay iyada oo ugaaskii la soo xulayo gudidii qaban qaabadana la doortay oo marka in lagu dhaqaaqa la doonayo lagana codsaday qoyska Yasiif inay u soo guuraan meesha la yiraahdo Geelle Cabsiye ama Gugumacad 5 kilomitir bay soo waxba saas uma jiraan waa iska deegaanka dhexdiisa way inay u soo guuraan la rabo Milla iyo Gugumacad ka 5 kilomitir soo jira marka waa inta halkaas inoo mareysay haddaba markii la soo guuray ee la isugu yimid Geelle Cabsiye dhulka markii la yimid ayuu Ciise wuxuu ka codsaday Yasiif in ay keenaan boqorkii ay farta ku soo fiiqaan soo sahamiyaan iyagu ay farfiiq sameeyaan ayagaas marka waxa Ciise uu ka codsaday oo weydiistay in ay soo qabtaan ugaaskii xeerku uu lahaa iyaguna waxay codsadeen muddo 7 maalmood in la siiyo sida ayay marka ku hawlgaleen gudiye ayay direen saddex nin ah oo ilaa 2 gudi ah sidaasay gudiyadaasna ku hawlgaleen waxayna soo indhaynayeen oo soo arkeen 4 dhalinyaro ah oo markii horeba ilaaladu ka meertay isha lagu hayay sumal baraar kuma jiray Soomaalida ku mahmaadaay rag dhalinyaro ah oo akhlaaqdooda iyo dhisay u dhisan yihiin isa u yaalaanba markii horeba himilada laga qabay astaamihii caadiga ah ee laga rabay shuruudihiina lagu arkayay ayay markiiba isha ka meeriyeen 2 nin oo dhalinyaro oo Mille iyo agaarkiisa ku nool ama aan dhihi karo miyiga jooga iyo 2 nin oo diradaba jooga oo gudaheeda ku nool oo dhihi karo waa magaalada ayay joogaan waa 2 dabadeed marka sidaas ayay ku soo arkeen way soo laabteen Ciise bay u yimaadeen waxayna ku yiraahdeen 4 dhalinyaro ayaan soo helay mid anaga idinka reebnay oo qaad baa ku soo baxay 3 ayaanu idin keenay wana kuwa magacyadoodii abtiyadood iyo meesha ka soo jeedaan macooyadood halkaas ayay maartay keeneen ila abtiga laftiisu waa qayb kamid ah ugaaska xulashada waynu u tagi doonaa halka ayaa magan alla marka laga yiri oo laga aqbalay halka markay giraantu marka baturinayso su'aala iman karaya 3 nin hal nin baa loo baahan yahay 3 nin oo iyagu aan tartamaynin ee la tartansiinayo shuruudana lagu tartansiinayo laakiin ayagu rag soo taagayo waan rabaa ma oranayaan laakiin waa la dooranaya waa la ilaalinaya waa la arkaya raggaas haday shuruudaha ka simaan abtiyaasha loo eegaya dhinaca macooyada haday ka simaan magaca loo eegaya oo marka xilliga dhaqanka marka jiray waa kitaab magaca kitaabta laga fiirin jiray iyo xidigis iyo waxa lagu eegi jiray laakiin waa rag la hayo siman marka waxa la sameeyay qof aan la garanin laguma raadiyo waynu u tagi doonaa hadduu haday simaan waxa ugu muhiimsan waa loo qoriyo tuuraska marka sharciga yaa kus jira oo sax ah waa hagaag marka astaamaha jiray arrimo dhowraan meesha ka saarayna oo ugaaska aanan lagu xulanin ugaaskii ugu horeeyay Ibraahim aha saynu sheegnay soo geed saaran bay daruuri raacday waa lagu doortay intii ka dambeysay ugaas daruurtaas laguma dooranin si laazimi ah macnaha oo mid walba laguma dooranin ugaas Xasan Xirsi ayaa afkiisa ka cadeeyay wax daruuro
ima raacin imana kor joogin markii aniga lay dooranayay marka qodobkaas horta waa qodob oo astaan gaar ah oo rabbaani ah oo ka dhex saarta ciisaha oo farta lagu fiiqo la yiraahdo ilaahay baa inoo doorayo wakaas astaantaa watay ma jirto qodobka labaad ee kalena waa xagga riyada haddii lagu riyoodana oo waxay waxsan ku riyoodayna iyadana lama qaato faal la dhigay iyo curaafiyeysi lagu raadiyeyna laguma doorto arrimahaas laguma doorto oo intii ruux faaliyo uu yiraahdo ugaaskii aniga arkay oo waana saas u leeyahay oo faalkaas saa u sheego يعني ما كمد aha waxyaabaha lagu raadsado hidaraac abtiris abti u fiirin akhlaaq ka raadin in ka raadin dadaal waqti dheer gudiyo ayaa loo maraa sida markay marka xaajadaas marayso oo arrimahaasna aynu meesha ka saarnay oo aan lagu dooranin waxa markaa dhacday in gandihii iyo gudidii 144 aynu naqaanay inay markaas ay soo doorteen 14 nin 14 kaanin Muuse Meegaag Barre ayaa waxaa looga dhigay gudidaas gudoomiye gudida waxaa loo diray arintaas ay soo gudbiyeen reerku inay bartaas ay ka raadiyaan waana gudiyo baha ka kooban halkaas ayaa marka lagu dhaqaaqay 31 bishii August 2009 ayaa markaas oo ku beegneyd bishii Ramadaan 11keedii ayay ka soo baxeen goobtii geela cabsiye ballankuna wuxuu ahaa ugu dambeyn ugaaska soo qabtaan bartamaha bisha Ramadaan xeerka marka intaas waa sheeko iyo qaabkii oo xeerka loo raacayo in la soo ilaaliyo gudiya la diro la soo raadiyo la soo baaro waxa soo dhawaaqayba xeerka kamida weey waxa kale xeer ah in ugaaska la qabto habeen cadda ah habeenka caddada marka 15 bisha 14 bisha 16 bisha 14aadka waa marka dayxu idil yahay dhameystiran yahay 15aadka 16aadkana wuu raacayo nisqaani kuma jirto laakiin inta ka horeysa bisha uu caddada yahayna nisqaan baa ku jirto de uu soo wada baxaya inta wixii ka dambeeyay nisqaan baa gasho uu sii dhacaya marka habeenadaas ayaa marka la raadiyaa oo la soo maartay ugaaska la rabaa in la caleema saaro ama la isku raaco oo la garto waqti dheer bay qaadanaysaa caleema saarkiisa iyo wadkiisa waynu u tagi doonaa warwareej macnaha wadka waxaan ka wada warwareejinta kolba meel la tagayo dixaha la tagayo kullu magaalo la tagayo waqti dheer bay qaadan doontaa laakiin habeenkaas cumaamad saarka waa inay saddexda habeen adigu habeen cadda ah waa inay tahay waa hagaag si ay u soo sahamiyaan saddexdii nin ee dhalinyarada hay'ad la sheegay ee lagu sheegay Milla iyo Dirdhaba ay nimankaasi ay u soo baxeen waxay ku horeeyeen Milla ninkii joogay bay ugu tageen halkaas dhalinyarada dabcan way baadheen wayna ka tageen Dirdhaba ayay tageen Dirdhaba markay tageen waxay ku dageen gurigii in Ali Maxamuud Nunawi halkaas ayay ku dageen dabadeedna halkaas ayay waxay ka soo aadeen iyagoo sahaminaya Mustafa oo hadda ugaas Mustafa aan oranayno marka Mustafa loo qoray laakiin hadda ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ugaas Wacays ayaynu oranaynaa maadaama xilligan hadlaynay ugaas yahay oo Dirdhaba joogay oo labada nin ee Dirdhaba joogtay mid kamid ah ayay soo aadeen gurigiisii haddaba habeenka ay gudidu soo sahaminaysa Mustafa ayaa nasiib u yeelanay inaan raacno qoraaga buugga ayaa wuxuu leeyahay waan raacnay oo rag baa la socday lama ogolayn laakiin in gudida cid kale ay raacdo horey looma ogolaan jirin saadaradeed laakiin nimankan maadaama la ogaaday inay ka shaqeeyaan RTD idaacadda maqal iyo muuqaalka ee Jamhuuriyadda Djibouti niman aqoon-yahano oo maartay wax kaydaynaya oo xog ururinaya oo wax arkaya ay yihiin xilligan xaaliga iyo duruufaha lagu jirana kaydaynta iyo xusuusaha iyo qoraalka loo baahan yahay sida ayaa masaalix ahaan loogu daray
laakiin xeerka iyo dhaqanka ka mid ma ahaan jirin gudida cid inay taraacdo oo cid ay raacdo nasiib baan u yeelanay buu yiri sida ayaana ku raacnay waxaana lagu tixgeliyay inaanu nahay idaacadii sida halka markay marayso ayaa 14 nin iska soo 14kii nin baa 7 nin iska soo xulay sugaal maxamed rooble baabuur bay raaceen baabuur uu macna sugaad maxamed rooble ninka la yiraahdo baabuur uu lahaa baan raacnay buu yiri roob yar baa da'ay buu yiri halkaas aanu markaa waxaanu soo aadnay aqalkii maxamed ibraahim ugaas wacays oo ugaas mustafa aabiye halka ayaanu ka soo aadnay markaas xaafadda ay deganayeen waa Cornell magaalada Diridhaba ay waagi hore xaafadda la oran jiray xaafad Ciise xilligii hore halka ayay soo aadeen xilliga markaa mustafa aabihi muusan joogin awowgii baa joogo aabihi adeero ah halka ayay markaa gurigii soo galeen way yimaadeen roob yar baa da'ay buu yiri cimil ahaan marka uu sheekada maartay si qurux badnaada jawiga laftiisa uu ku daro roob ayaa da'ay roobkaas kullee waa raxmad iyo naxariis iyo cirka oo furan dabeedna ninkii odayga ahaa ee mustafa awowga u ahaa si dhiiran luxdan xoogan noola hadlay buu yiri wuxuuna nagu yiri maxaa doonaysan ciisow oo yare mutaxan ayuu nagu dhahay si mutaxan markaas uu nagu yiri marka anigu wuxuu markaa buugu qoraagu waxyaaba uu ka yaabay ayuu sheeyo macnaha uu ka dhigayaa si mutaxan iyo weydiiyay ka bacdi marka xaaji Muuse Abakor oo hormuud ahaa ayaa markaa wixii boqorkii baan doonaynaa ayuu ku celceliyay asagoo adkaynaya ayuu saa ugu celiyay odaygii waa kacay mustafa maxamed ibraahim buu gacanta soo qabtay waana soo istaajiyay markuu soo istaajiyay dayma lagu bilaabay aragti mustafa markaa sidii nin salaad ku jira ayuu saa u taagan yahay ma dhaqdhaqaaqay aad baa loo eegay toddobadii ninba wiilkii bay dhowrid ku bilaabeen iyo baadhid iyo arag macnaha dee fiirin rag waa wax aad u ildheer ninkiibaa sidaa loo eegayaa kabacdina markaas ayuu xaaji Muuse su'aal weydiiyey ninkii odayga ahaa wuxuuna ku yidhi ninkani wax iina ma leeyahay maya ayuu si buuxda u yidhi oo aad maya aad dareemayso maya aan shaka ku jirno macnaha dee barxala kabacdi markaa nimankii odayaasha kale 6 ahaa isaga weliba wuxuu ku yidhi ninkan haba yaraatay wax iina ma leeyahay iyaguna maya ayay yiraahdeen waa okay maya bay yiraahdeen waa magan Allah oo way inaga dhantahay ayaa markaa u yiri halka markay maraysay kaceen markaa waxay gacan qaadeen Mustafa awowgii sida ayana ku tageen wafdidii bay u tageen kale ee 7 ahaa halkaasay markaa ugu warbixiyeen inay ninkii soo arkeen waa la iska daba warbixiyo hadalkii waa la dhameystiray oo xaaji Muuse iyo ragii la socday waa warbixiyeen nin baa su'aal weydiiyay wuxuu yiri 3 nin bay ahaayeen ragii la soo saamiyay nin mille ayaan ku soo aragnay ninna Diridhaba ayaan ku aragnay waa ugaas Mustafa ninkii kale maan u tagno ninkii kale uma baahnin bay yiraahdeen mar haddaynu ninkan ku qanacnay ninka uma baahnin waa hagaag halka ayaa lagu qancay la isuna qaatay waxay markaa halka isla garteen raggaas 14 ah Mustafa Maxamed Ibraahim ugaas wacays inuu noqdo ugaaska 19aad hase yeeshee bartii la fadhiyay ballan baa lagu galay 14 nin iyo raggii la socday ee marti sharafta ahaa in aanan neef ka bixin haba yaraatay wax hadal ah oo sir oo baxdaa aynan jirin oo halka la aamusnaado kabacdina bisha September 2 ayay waxay aadeen TV-ga iyo radio-ga iyo TV-ga magaalada Dirdhaba halkaasay tageen waxay sheegeen in ay ugaaskii 19aad ee Ciise ay heleen laakiin magacna meena sheegin tilmaanna meena sheegin waxna meena sheegin taa ayay shaaciyeen qof walba dhigta ayay ugu dhacday in ugaaskii la helay dabeedna qoyskii ugaaska ayaa waxa lagu wargeliyay in ugaaskii 19aad uu noqon doono Mustafa lana tagi doono oo halka iyo la aadi doono goobtii ay gudidu fadhiday sidii ayaana lagu soo ambabaxay oo lagu soo aaday goobtii ay gudidu fadhiday halkaasoo si aad iyo mug iyo miisaan leh loogu soo dhaweeyay ugaaska ugu horeyn oday reer xasan markii goobtii la yimid oday reer xasan baa wuxuu yiri markaan
aanu nimaadnay ee meel la isugu yimid oo cidhiidhi oo hodan kale isugu yimaadeen ayaa waxaa kacay oday reer xasan ah yaa kacay bannaanka ayuu u baxay wax yar kadibna wuxuu nagu soo noqday odayga waxaa nagu soo noqday biyo odayga la yidhahda axmed cabdulaahi gadiid oo yeesif geedi cali ah odayga axmed cabdulaahi gadiida aabihii ayaa cumaamadda wuxuu saaray ugaas xirsi marka ninkani waa ninkii aabihii uu saaray cumaamadda ugaas xirsi uu saaray markii la boqorayay kabacdina ninkii oo gacanta haya mustafa maxamed ibraahim ugaas mustafa markaa oo khamiis cad iyo koofiyad ku labisan ayaa iridda ka soo galay oo ay hareeraha socdaan odayo yeesif ah oo reer xasan ay garab socdaan axmed cabdalle sida xeerku dhigayo wuxuu mustafa gacanta ka saaray oday la yidhaahdo aadan lacag oo sacad muuse ah inta badan ogaasyada waa inay dhalaan sacad muuse oo ay abti u noqdaan waa qayb iyadana ka mid ah oo inaan maalintii dhaweytana aynaan sheegin hadda laakiin aynu sheegayno oo reer guulana ah markaasoo odaygii dhawaaqay oo yidhi lagu reeyow ugaas khayre saa ayuu ku dhawaaqay lagu reeyow ugaas khayre markaasaa waxaa la wada yidhi lagu reeyow ugaas khayre waxaa gundhaha u goglay oday xasan gadiishe ah oo reer aadan xasan ka mid ah oo reer aadan xasan ka ah ayaa markaa wuxuu u dhigay bahalkii yaraa ee la dhoranayay gandhataha ayuu u goglay markaasuu mustafa ku fadhiisiiyey halkaas ayuu markaa u fadhiisiiyey waxaa cumaamadii saaray odayga yasiif geedi cali ahaa heerkaa ka soo jeeday ee magaciisu ahaa axmed cabdalle gadiid waa ninkii aabihiina uu ugaas xirsi cumaamadda saaray dabadeed halkaa ayaa markaa la duco fara badan ayaa la duceeyey aad baa loo duceeyey gacmahana ilaahay loo horsaday aamiintaana la wada yidhi halkaa markay ay garaantu batorinayso aroornimadii dambe oo bisha sebtembar ay 3 tahay salaadii kadib sidii ballanta ay ahayd waxaa lagu soo xoomay goobtii uu mataqaanaa ugaasku u joogay ayaa la isugu soo xoomay oo la isugu yimaaday si loo galbiyo oo gugumacadka iyo halkaa iyo geelle cali bartii guddidu fadhiday loogu gudbiyo halkii ayaa la isugu yimaaday halkaa ayaana loo gudbiyey oo sidaa ayuu ugaaskii uu kaga ambabaxay diridhaba oo halkaa ayuu aaday markii uu midlo soo galay ayaa si weyn oo mug iyo miisaan leh oo culimo iyo caruur iyo cid walbaba leh ayaa halkaa loogu soo dhoweeyey ugaaskii cusbaa dadweynihii oo dhan oo aad u tiro badan ayaa marta halkaas isugu soo baxay waa hagaag halkaa ayaa marka aad la isugu soo baxay kabacdina meeshaa markii aad loogu soo dhoweeyey ayaa wuxuu u soo gudbay gugumacadka ama bartii ay guddidu ay joogtay halkiina sidii si ka weyn iyo si heer sare ah ayaa loogu soo dhoweeyey halkaa ayaana laga furay xafladdii iyo kulankii markaa cumaamad saarka ayaa bartaa laga furay xafladdaas maxamed macalin cusmaan ayaa aayado qur-aan iyo wacdi yaa ku furay maxamuud axmed buux oo wardiiq ah yasiif geedi cali ka ah ayaa ugaaska dhallinyarada ah ee la boqorayo gacanta soo qabtay islamarkiina waxa uu gacanta u saaray xaaji muuse abakor oo sacad muuse ah oo reer guulana ah ayuu u geliyey xaaji muuse gacanta midig oo ilaa iyo suxulka ah ayuu sidaa u qabtay markaasuu wuxuu ku dhawaaqay lagu reeyow ugaas rooble sidaa ayuu mataqaanaa ku duceeyey oo uu markaa yidhi intaa kadib odayga la yidhaahdo guhaad aadan faarax oo sacad muuse xasan gadiishe ah oo xasan gadiidshe ah ayaa gundhe cusub oo midabkiisu cadaan yahay ayuu u dhigay ugaaska dabadeedna halkaas ugaaskii la fadhiisiiyey kabacdina halkaa markii ugaaskii la fadhiisiiyey ayaa
la cumaamad saaray oo maxamuud sheekh axmed buux aare ayaa cumaamad saaray waa nin wardiiqa iyo siifa geedi cali ah ninka ayaa markaa cumaamadii saaray oday kale oo sacad muuse ana duco ayuu markaa ducadiibuu halkaa isagina aada u duceeyey lagu reeyo ugaas roob leh ra'yadaada lagu reey ducadaas ayuu mataqaanaa uu akhriyey dadkuna aamiin ayaa loo yidhi xafladii qabashada ugaaska qaybtii dhaqanka halkaabay kusoo gabagabeeyeen halkaa ayay kusoo dhammaatay geed weyn baa markaa tilaabada xigta geed weyn baa loo waabay oo gab ah halkaas ayuu 7 beri uu ugaasku ku jirayaa oo joogayaa 7 beri kadib ayaa markaa halkaa laga tagi doonaa maalmihii uu halkaa joogay ciisihii oo dhan baa halkaa isugu yimid say u salaamaan say u arkaan say u dhunkadaan say u yani farxadda iyo reeraynta maalintii 8aad ee bisha Ramadaan 24 ahayd ugaaska laga soo kaxeeyay gugumacadka asaga oo loo galbinayo isagoo ay galbinayaan gandihii daqiiqada yar kadib magaalada Mille ayaan soo galnay halkaasoo iyadana si diiran dadweynihii boqolaal kor u dhaafaya ay ugaaska ugu soo dhaweeyeen waxaana la dejiyay halkaas guri ku yaala masaajidka Mille agtiisa meel masaajida oo masaajidka weyn ee magaalada Mille ayaa markaa la dejiyay يعني خالد المشاس مساجد وين مقالة كويالا أكتيس قرية كويالا أيا لدتشي أوكي مركي لأفري كدب أيا قوليه لو وضا فريستي لنا وحا كسو تشيد سيدي قار كمي دا جنديه أو بها أودن لنا عكرنا وضير غير حسنة hadalka sidii caadada u ahayd duco ayaa lagu furay dabadeedna gandihii baa hadlay gaduu marka reer xasanka ayay la hadleen waxay ku yiraahdeen boqorkii ciise ayaan wadnaa oo soo tadaba baxay ciise weyne iminka wixii ka dambeeyay reer xasanow aduu kugu og yahay oo kugu soo wareejiyay ugaaska 40 maalmood kadib hadii alla yiraah baanu iman walaalayaalow isagoo bad qaba aanu imaado waa sida uu xeer ku dhigayo in wadada siiqada la maro dabadeed reer xasankii waxay yiraahdeen waan gudoonay tolkayow waana daranya dhabayna hadii ilaahay uu yiraahdo sida ayay markaa ku fasaxmeen oo 40 ka bari ay ku kala tageen 144 oo ay qof walba macnaha uu tagay ugaaska waxaa goor kasta Mille la jooga afhayeen u ah gudoomiye gandaha waxaa jiroob la wacays iyo aabihii labada ayaa la jooga markii amaamad saarkii uu dhacay abaalmarin ayaa la sameeyay abaalmarintaasi waa mid mar walba la sameeyo reerka la yiraahdo Yasiif Geedi Cali 100 sameenood ayaa la siiyay reerka la yiraahdo Xasan Yoonis oo gurane ah iyagana waxaa la siiyay hal oo waa loo lacagay laakiin lacagahaas hadda macna ma sameynaysa laakiin hal baa la siiyay waxaa kaloo samirsiin la siiyay wiilkii Mille loogu tagay ee la soo baaray ee laga tagay lagu soo jawaab lagu soo celinina isagana qaarin geel ah ayaa la siiyay oo samirsiin ah maadaama nin loo yimid oo la baaray uu ahaa nin kalena la doortay qaalintaas ayaa la siiyay waa hagaag wali waxaynu ku jirnaa geedi socodkii inta hadda wixii ka dambeeyana waxaynu u tagi doonaa qaababkii inta ka sii dambeeyay sidii daxaha loo marin lahaa sidii ilaa sayla cali masaarkii loo tagi lahaa baynu gadaal ugu tagi doonaa laakiin intaasayna noogu dheeraanin sheekada iyo macaan ee quruxda badan ayaynu ku joojinaynaa qodobada xeerarka ee ku dhex jira iyo sheekada iyo iskaga khaldamin xeerar baa ku dhex jira qaabka ugaaska loo soo xulay gudiyada qaabka loo saaray qaabka sahanka loogu tagay qaabka afritookana u soo ururiyeen qaabka loo soo geedi galiyay qaabka loogu simay gudida
qaabka xalfadda loo qabtay qaabka loo cumaamad saaray qaabka waxaasoo dhani waa xeerar weeye oo qaabab aan gees laga maraynin oo ugaas walba uu marahayo weeyaan waa hagaag marka qaabkaas waxaynu u sharaxaynaa inuu dhaqankeenii kala dambeynta iyo nidaamka ummadaasi hal talo guddi baa la saarayaa go-aanka oo dhan ayagaa gaadhaya ana amiir waa anta amiir ma jirto marka sidaa daraaddeed baan u jeclaysanay dhaqankeena inaynu dib isu xasuusino si aynu bal innaga lafteennu waa aynugu ta'aurno aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaynu qaybta 3 iyo 3 isugu iman doono waa cabdiraxmaan adir ramadaan kariim insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu